حياتي بنور من فؤادي حينما رددت يا wuxuu sheekhu wuxuu dadka ku dardaari jiray inay saddex duco ku ducaystaan marka ay sujuudsan yihiin saddex duco inay ku ducaystaan marka ay sujuudsan yihiin ducada koowaad waa maxay wuxuu yiri waxa aad oranaysaa allahumma inni as'aluka husna al-khatima ilaahu waxaan ku weydiisanayaa khaatimo wanaagsan ducada labaad waxaad oranaysaa allahumma irzuqnii tawbatan nasuhatan qabla al-maut ilaahu toobad nasuuxa ah igu arsaaq intaana dhiman ka hor saddexaadna waa yaa muqallib alqulubi thabbit qalbi ala dinik ilaaha quluubta gagadiyo qalbigayga diintaada ku sugan markaan u fiirsaday saddexdan duco ikhwaani waa saddex duco oo aad iyo aad u muhiim ah nolosheenana si laxaad leh oo qoto dheer u taabanaya sababtu waxay tahay waxa intuba ay ku dulmeeraysanayaan arrin kaliya oo ah inaad adduunyada ka hayaato oo ka tagto adigoo ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq ku waafajiyay adigoo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali yahay gaayada qofka bila aadamigi uu nool yahay qofka muslimkii waa taawiya maanta ikhwaani adduunyadan fitankeegi waa farabatay waxa batay arrimaha la isku haysto بين المسلمين dhexdeeda xaq iyo baatilkiiba in marka qaar kood sida loo kala sooca ay adag tahay in ka soo dadka ahlu xaq iyo ahlu basiira ilaahay mar walba xaq garansiinayo laakiin adiga maxaa lagaga baahay ka shakhsi ahaan ahamiyada ay ciidan leedahay bay garansiisay waxa lagaga baahay adiga shakhsi ahaan akhi naftaada badbaadi waxa laga yaabaa nin maanta oo dhan siyaasad ka sheekeynaya siyaasadii Soomaaliya ka sheekeynaya dagaalada qabaa'isha Soomaalida dhex yaala ka sheekeynaya waxa adduunka ka dhacayo ku xiiqayo oo fadhi dirir ku xiiqay ayaa hadana naftiisa dayay akhi adigu hadaad maanta ilaahay aad la kulanto oo taadi noqoto oo hooyga aakhira aad ku hooyato ma leedahay ilaahay raaligiisa ma sheeganaysaa waji aad ilaahay subhanahu wa ta'ala aad kula kulanto waji wanaagsan oo ilaahay aad kula kulanto ma sheeganaysaa naftaada badbaadi intaana kala ka sheekay ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa maalinta qiyaamada soo taagay ilaahay qabiilna soo wada urun maayo reer hebel baa la wada xisaabinaya la oran maalinta qiyaamada la oran xisbigii reer hebel baa la wada xisaabinaya ama jamaacadii reer hebel baa la wada xisaabinaya ama gobolkii reer hebel ama degmadii reer hebel oo kullu aatihi yawm al-qiyamah qof baaba maalinta qiyaamaha إلهي سبحانه وتعالى يسوي كلية وعد صعطة يعد الدوديسة يعد دفاعيسة أن يجنبوا مالت قيامها إلهي سبحانه وتعالى يسوي تاريخ أهمية الدعاء كنا إليهين وحيك أن بقى عضيان إلى إلهي بريسو حسن الخاتمة إلهي خاتمة يكون هذا الشيء ضد إخواني يو أهل العبادة ها حدنا أنتي أنا اللي من كهر يسبدلي وعقيدودي بدلنتي أو إن عبادودي أي بدلنتي أو سنه كله إحنا دد بأجرا مظالم تيسكيل يعني إن تدخل ظلميان لكن قبل الموت مظالم بدن كل عي اللهم نسألك حسن الخاتمة يا إخواني دد با نفط كبح ذي يوم السجود دد با نفط كبح ذي iyadoo kitaabka ilaahay akhriyayo uu hor furan yahay dad bay naftu ka baxday iyagoo kacbada dawaafay dad bay naftu ka baxday iyagoo Carafa taagan Sheekh Maxamed Rashaad oo garan ka rahimahu ta'ala dad bay naftu ka baxday iyagoo Soomaali ikhwaani adii biritoole markay maalintaadii noqoto geeridu maxay ku noqotaa maado ilaahay caabudayo maado ilaahay ka baqanayo adigoo iska ilaaliyay xuquuqda dadka bini'aadamku ay ku leeyihiin adigoo madaalimta iska ilaaliyay adigoo dhiig muslim aan gacmaha la gelin adigoo hanti muslim aan gacanta la gelin adigoo cirdi muslimiin aan gacanta la gelin isoo waxay ku iman doontaa adigoo waxa soo noqdo looqaystay xusnul khaatima ilaahay mar walba weydiiso khaasatan aan ku sujud takalana waxa tiraahdaa sidoo sheekhu yiri ilaahu uu arsaaq allahumma subhanahu tawbatan nasuha qabla al-maut toobada nasuuxadu waa maxay ikhwaani waa toobad lagaaga meeyo oo lagaaga dhaqo dunuubtii aad gashay
وأديكو صافية ربك أجي سبحانه وتعالى كو أبوتي الله كنت وياه توبة نصوحة إلهي بقى حنو قال لي قف ولو بالآذن وقلدما ولكن الطائب من الذنب كمن لا ذنب له قف الذنب كتوبة كيرا وسيدي قف أن ذنبي بقريبا توبة النصوحة الذنوب تالغو لقا الذنوب تالغو ميراه سيئاتك أيها لغو ميراه وحلي إله أنت آنم لمن إيجريد أنا إيمان يقولك آخرة آنم كو أرورين إله توبة أي وافجي حتى لحظة وضم بيسين ولا شارع هالنقطة إله وافجي ومر الله على مركز نفسه كابحضه والوك الرقاق خاص دكان كاي والله حري سوق كاي والله حري عمل صالح حد بمجره اللهم لأعماشا حسنات كوغا يكون صعونيان انت ما حيث لي الا حتى اللي بشهاده كدب مساجد dadkii dhisay waa kamida xawaarihan xal lacagta u gurinay ayaa kamida guri aad agoonta u dhistay baa kamida ceel biyo oo dadka aad u qoday baa kamida walid saalixa oo ku soo duceeyay ayaa kamida laakiin acmaashi adu aad isahaanta u sameeynay waluu kalitay takalana ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلوبك قديو قلبي الدين هذا تصل سلف وحورن جرين إياك فإن دين الله واحد إياك والتلون فإن دين الله واحد تجروا له نقول تجروا له صوت غنى تجروا له نقول هيس بدلين معلم بقى يعني سيد الدبيشة حقاقة دين إلهي كجا إيمان دين إلهي هو مد هيس بدلين ثبات كوير دين إلهي واحد شريف ما نورك شيء ما أنت هناك وارك دين إلهي سبب شو سنة الشريف سنة وارك شيء ما أنت بدعها وارك دين إلهي وامد سنة دين اسمه بد شو نسأل الله عز وجل إنه دمان تهم بحسن خاتم لوا ساقه إنه توبتنا صحيح لوا ساقه إن دين تيسرين نوصه إنه مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى أن نذكر الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. نحيي فينا الآن نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا